المهم مسألة كصابسا ضدك أصحاب العذاب كالدار كله لبا لو kala qaadaya dadka xanuunsan xanuunku inuu yahay xanuun rajo lahayn ilaahay baa caafimaadka bixiya laakiin inta bini aadamku garanayo xanuuna aan laga caafimaanin inay sii siyaadaan way aan ka soo rayn lahayn ruuxuna uusan la soomi karin nooca hadduu yahay ruuxu raashin buu bixinayaa iska afuraya maba soomi karo raashin buu bixinayaa ma mudba ma nusfu sacba fuqahadu isku khilaafsay mudku taqriiban waa ilaa 600 gram meelaas nusfu sacna waa intaasoo la laba laabo taqriiban waa muxuu ahay nus kiilo iyo 200 gram tanna culimada qaar baa qaba tanna culimada qaar maalinkiiba intaasoo kale u bixin masaakiin buu siin intaa way waajibkiisu ruuxu hadduu xanuunkiisu uusan la soomi karin laakiin xanuun rajo leh uu yahay oo rajo laga qabo ama weli aan la hubsaninba markaa uu iska afuri waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar uu iska afuri kadibna xaaladiisu baxnaaninay laba mid bay xaaladiisu ku dhammaanay inuu caafimaado markaa qalaa laga rabaa inuu caafimaadi waayo xaaladiisii kasii darto rajo la-aan ay noqoto markaa raashin buu bixinaya labadaas sidaasaa loo kala qaadaa culimadu u kala qaadaan masalada farciga la dhexgeliya ee ah dadka neefta qaba baashan la yidhaahdo bantaliinta ama bakhaaqdan loo isticmaalo ee lagu buufiyo afka si xoogaa sanbabadu ay ruuxu ay hawada oxygeenta u qaataan ma jabisaa soonka mise ma jabiso waa masale casriya fuqahadeennii hore maysan ka hadlin ma jirin laakiin waa masale casriya waay culimada hadda joogtaa ka hadlay qaar waxay qabaan way jabinaysaa qaarna waxay qabaan ma jabinayso waxaa loo badan yahay inaysan jabinayn waxayna ku salaysan tahay waxa ay sii daynayso maadada afka galaysaay ma hawa mise maada la taaban karo oo ama biyaa ama qoyaan abaa galaysa caloosha gaadhaysa marka waxay u badan yihiin majmuc alfiqhi alislaami iyo fuqaha badan waxay qabaan inaysan soonka jabinaynin baashaasi ruuxu markuu u baahdo neef qabo uu isticmaali karaa bay u badan yihiin waana masale khilaafiya wey wallahu aclam